Saddex caado ee lagu noqdo taajir: kasbo, keedso, maalgasho. Magacayga waa Cabdiraxmaan, halka ay ka daawanaysid waa Abna Official. Fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga insha Allah. Hel oo keedso oo maalgasho. Haddii aad rabto inaad taajir noqoto, saddexda shay ayaa had iyo jeer u baahan inay maskaxdaada ku jiraan. Runtii ma ahan mid dhib badan, xitaa uma baahnid inaad lacag badan hesho si aad taajir u noqotid haddii aad leedahay caadooyin maaliyadeed oo caafimaad qaba, oo ah inaad is-kontarooli kartid mar walba. Kow. Caadada kasbashada wax badan. Waxaan sidoo kale aaminsanahay in kordhinta kartidaada dakhli ay tahay hab dhaqso lagu dhisi karo hanti. Inkasta oo aan u maleynayn inay lagama maarmaan tahay in la burburiyo samaqaabkaaga maskaxeed adigoo si joogto ah u eryan lacag badan oo aad eryasho aadan galin. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax dabiici ah inaad kasbato wax badan intaad nooshahay. Waxaan aaminsanahay in qofku wax badan kasban karo markii uu wax badan barto. In badan oo aan wax barano ayaa qiimaha badan aan siin karnaa dadka iyo ururada kale. Waana sida aan u kasbano wax badan. Hadda taas micnaheedu ma ahan inaad u baahan tahay inaad dejiso yoolal aan macquul ahayn sida waxaan rabaa inaan sameeyo $1 milyan sanadkii. Maya, macquul ma ahan. $100,000 sanadkii waa wax dad badani diiradda saaraan. Sababtu waxay tahay waxba tari mayso inaad si aad u shaqeyso oo aad wax badan u hurto inaad u hesho xoogaa lacag ah. Kaliya inaad gubto sanadkii ka dambeeya oo aad khasaariso waxba ma tarayso. Sanadkan aad lacag shaqeynaysaa, soo sanadka xigta lacagtii meel kuma sheegtido eber aad taagantahay. Waa garsomaan. Markaas arrintaas wax ma taraysa. Taa beddelkeed, waxaan arkaa kasbashada sida caadada oo kale. Waa inaad sanad kasta aad joogteysa inaad wax meel dhiga karto. Waxaan rabaa inaad barato xirfado cusub iyo siyaabo kordhiya kartiyada kasbashada lacagtaada ama hantidaada. Ha eegin xaddidaadda lacagta ee aad sameyso. Waxaad eegtaa inaad horumar sameyso iyo in kale. Taasi waa waxa ugu muhiimsan wax kasta. 2. Caadada keedinta badan. Qaladka ugu weyn ayaa ah inaad keediso isla lacagtii aad kasbatay ka badan dakhligaaga. Waxaad isku daydaa mar walba inaad safgarayso 10% ugu yaraan. Noloshu aad bay u gaaban tahay si aad u keediso diinaar kasta oo aad haysato. Isku day inaad ku dadaasho wax keedinta. 3. Caadada inaad maalgashato wax badan. Qaladka ugu weyn ayaa ah joogteyn la'aanta maalgashiga. Inaad maalgeliso waxa aad keysatay waxay qayb ka qaadanaysaa kordhinta hantidaada. Ku maalgeli hantidaada meel aad hubto oo aad natiijo ka keenaysid oo leh wax ku dhisan future plan mustaqbaliyan wax oo qorshe mustaqbal ku dhisan ee ahaadaan. Ugu dambeyntii, dhisida hantida waxay ku timaadaa caadooyinkeena. Haddii aan leenahay caadooyin maaliyadeed oo caafimaad qaba, waxaan sii wadi karnaa horumarinta nafteena oo aan lacagteena si caqli leh u maalgelino anagoo aan halis weyn gelin. Waana ku guuleysan doonaa. Mar walbana ku dadaal inaad is-kontarooli kartid. Waayo waxaad keedinaysid waxay u baahan tahay inaad adiga is-kontaroolshid. Kullama adiga is-kontaroolshid waa kullama adiga meel wax ku yaala. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan aad iyo aad ku anfacay. Fadlan subscribe saar channelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga insha Allah.